qabtaa sida gaarkaan waxaan u hadlaa meeshaan ani waa deganay dabaqa labaadaan saarnay waxa waaye hotel maka anoo degan waayo marka qarxi shanaad waaye ya qarxi shanaad waaye marka kan laakiin waa ka duwanay kuwa kale kan wuxuu shaabahay kii oo soobo shaabahay aad u aga duwanay marka ilaahay maaragtay inta dhimata u naxariisto intii caafimaad qabtaan caafimaad inta dhaawacana Allah ka kiciyo dawladda waxa laga rabaa gurmad waxa la rabaa kalimaha ninka bajaajka ku dhaawacmay iyo kan madaxda hadda annaka meesheen waxa ku dhaawacmay garyaqaanka guud ee dawladda meeshaan dhaawac uu ku jiray waa marka waxa la rabaa isku si in wax loogu qabto marka wixii kalena ka oday ahaan gobolka Banaadir ahaan mas'uul ana oo ka mas'uul dadkan gobolka Banaadir waxaan insha Allah shir jiraadan qabanaa waxaan ka hadlaynaa dadweynaha ganacsataha noqoto waxaan noqoto maxaa culamaa diin ardayda dugsilayda waxa wax lagu ballamay laga shiri doonaa insha Allah shirkaasna mar dhawaan soo sheegaynaa waqtiga la qabaay meesha lagu qabanayo dawladda dhaxan noo joogto cid kuma haysato laakiin dadka 40 milyan oo gobolka Banaadir degan hadda ka bacdi waa tashaayaan waxay sameeysanayaan sidii isu badbaadi lahayn sidii loo kala bixi lahayn dadku waa isku dhex jira hadda ma naqaan kiina dilay kii wax dilay ma naqaan hadda habeenkii albaabka markii qarax dhacay nimanka meeshii taagnaan askartina badbaadiyay iyo kuwa dilay inay ahayn markii hore lama aqoon marka waxa jirta si loo kala baxo waxa waaye gacnaha sacbadaada biya looga dhargaa dawladda teeda haysato dhimayna dawladda xubin qaboweyda dawladda waa shacbiga marka shacbiga gobolka Banaadir inaan mas'uuliyadda qaadano oo isxil qaadano oo loo yeero ganacsatada oo loo yeero culamaa diinka oo ardayda loo yeero oo meel iska saarnay tagayda saanka intaan ka bacdi marka waxay joogtaa adduunyaa bilaalay joogtaa oo dul qaadasho ma leh